madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ayaa gaadhay wadanka Imaaraadka Carabta magaaladiisa Dubai halkaas oo la filayo in uu dhawaan kulan kula qaato madaxda ugu sareysa ee haya majaraha talada wadankaas isagoo ka soo kicitimay caasimada wadanka Ethiopia magaalada Addis Ababa oo kula soo kulmay amaba wada hadallo kula soo yeeshay ra'iisul wasaaraha wadankaas Meles Zenawi madaxweyne Shariif ayaa la filayaa inay isla soo hadal qaadaan isaga iyo madaxda wadanka Imaaraadku sidii gacan ay uga geysan lahaayeen wadanka Imaaraadka Carabtu sidii nabad buuxda loogu soo dabaali lahaa cirif ilaa iyo cirif wadanka Soomaaliya dhanka kalena ra'iisul wasaare Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa ka qayb galay xaflad lagu xusayay 52 guuradii ka soo wareegtay maalintii ay xorriyadda qaateen gobolada waqooyi ee Soomaaliya maalintaas oo ku aadan 26 Juun wariye Mustafa Maxamed oo kamid ah wariyaasha TV-ga qaranka Soomaaliyeed ayaa umurtan eegaya munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa dabaaldega iyo fantasiyaha 26 Juun oo ah goorta ay xoroobeen gobolada waqooyi ee Soomaaliya maanta oo kale sanadkii 1960 waxaana dabaaldega munaasabadan maanta lagu qabtay taalada SYL dhalinyarada halgama u dirirka ahaa astaantooda iyadoo madax uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdiwali Maxamed Cali ku xigeenkiisa iyo xubna wasiirro iyo saraakiil isugu jirto ay maanta ka soo qayb galeen munaasabadaasi ee qaybaha bulshada ra'iisul wasaare Cabdiwali Maxamed Cali oo ugu horeyn fiyoore qurux badan dhigay taalada SYL ayaa hambalyo iyo bogaadinba u jeediyay bulshada Soomaaliyeed munaasabada maanta darteed waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in 22 sano la qasaariyay halgankii dhiiga badan ku daatay ee xornimada dalkan lagu gaarsiiyay isagoo rajo wanaagsan hadda ka muujiyay in waqti dhow laga bixi doono marxaladan lagu jiro waxa farxad weyn loo amaanta inaanu wax dhigno taalada SYL waa calaamad u ah maalintii xornimada Soomaaliya ee horeysay in la qaatay calan Soomaali laga taagay dalka Soomaaliya ee 26 Juun waa maalin taariikhi ah waa maalintii calanka horeeyay ee Soomaaliyeed laga taagay gobolada waqooyi waa maalinta aan horeeyay sarayo munasqamo aan sidii ay eege kana sir kana saare runtii waxaan runtii nasiib daraa horta in 52 sano ka bacdi 22 sano oo dib ah 22 sano colaada 22 shida aan soo maro laakiin waxaan isleeyahay 22 sano maanta waxaan leeyahay waa inagu filaatay Soomaalina way fahamtay in aan ka gudubno marxaladaas dhibta badan runtii tirayada aan soo maray sidoo kale ra'iisul wasaare Cabdiwali Maxamed Cali ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu ka hadlay howlgalka gobolada dalka ka soconaya isagoo hambalyo u jeediyay ciidanka xoogga dalka oo xaqiijiyay saakay gacan ku haynta degmada Balcad iyo deegaano Jowhar ku dhow waxaana uu carabka ku dhuftay in howlgalka uu sii socon doono tan iyo inta laga ciribtirayo cid kasta oo ka soo horjeeda nabadda Soomaaliya maanta waxaan ku bishaaranayaa magaalada Balcad in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya xameeyaan marka barnaamijkaas meel fiican buu marayaa wadanka in la xoreeyo la xasiliyo cadawgaas shirwadayaasha laga qabto meel fiican buu noo barayaa wala socotaan goboladii badidooda ay xoroobeen Baydhabo Xudur Bakool Gado Jubbooyinka si fiican uga socoto maanta u dambeysay oo aanu beledweyne Xamar Afgooye Balcad maanta aan marayno wax lagu farxo weeye way soconaysaa insha Allah inta Soomaaliya insha Allah inta soo socotana way xoroobaysaa intaas iyo dawladnimo taama oo ka baxno ku meel gaarnimada August 20-keeda 2012 ayaan ku wada gaari doonaa insha Allah yiraahdo waxa runtii farxad weyn maanta noo ah inaan u dabaaldegayno xorriyadii Soomaaliyeed maalinka ay maatay ku aadaneyd 26 Juun waa munaasabad runtii qaali nagu ah waa arrin runtii aan isleeyahay meesha aan taaganahay meelo badanba meelihii dhiigga lagu soo daadiyay waxaan rajaynaynaa ilaahina ka baryaynaa
midnimadii Soomaaliyeedna dib inay soo noqoto xorriyaddii maalinka lagu taamanayeen inay noqoto maalin loo hayo taalada SYL oo astaan u ah dhalinyaradii u soo halgantay xornimada Soomaaliya ayaa maanta waxa munaasabadan loogu dabaaldegayo fantasiyaha 26 Juun ee maalintii ay xoroobeen gobolada waqooyi ee Soomaaliya waxaana dadka Soomaaliyeed dhammaantood ay maanta oo kale u tahay maalin weyn oo ay u wada dabaaldegayaan Mustafa Maxamed Warcadeeye telefishinka qaranka Muqdisho. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد وحرب أنا هم بلي شعب الصوماليات وهم بليايو سنة جودة كسر وركت اللي حلا باتن كجون اللي كي مالن كوين شعب الصوماليات أو قبل لا وقوي كحرب بين جميسجة رنتي وحين قصوا عادي وقتي أي بلاودين وده هذا الله وده حيا وقوي كافر وده حيا وأن رجينا إن شاء الله تبارك وتعالى دورك وناكسنايو دورك وناكسنايو ولي وذا كل هايين محيهاتو مدن مدى ومدى الصوماليات السكينة الشعب الصومالي إنه ديبو صلابتو مركا وحن لها شعب الصومالي هنبليو وحن رجينا إن سنة كان سنة كيسة هرومر برواقة كنت شعب الصومالي وحيابي وكسناي لحقيقيو waxaan rabaa si gaar ah inaan uga mahad celiyo walaalaheena reer Soomaaliland niyad wanaaga iyo maxay ahayd xilkasnimada ay muujiyeen anaguna waxaan ballan qaadana dhinaceena inaan diyaarna insha Allah tabaaraka wa taala Soomaalina meelna kala ma tagi karto laakiin haddana haddii wax la kala tagto in wixii la kala tagtay la xalliyo waa laga maarmaan marka waxaan leenahay hambaliyo shacabka Soomaaliyeed guulku waara insha Allah tabaaraka wa taala بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين رنت أمد الصوماليات مال كستو جوجان وحلينا حبليو إلهي بمهد إسكاله ومالين تاريخية وأمد الصوماليات مال كستو جوجان تاريخ ولا جارهان قولاد وقوي مالين تاريخ كل واي وإلهي كبرينا إن مناسبة إلهي وكسو أدي الصومالي من نمدي قرن نمدي شرفت دي النبض هذا حيث إنه إلهي جارسي أمد الصوماليات madka Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leenahay hambaliyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo dowladnimadeeda uu xoojiyo qarannimadeena ilaahay uu wanaajiyo haddana runtii tilaabooyin badan oo fiican baa aad loo qaaday dhinaca amniga aada guulo badan baa laga gaaray mahad ka gaarto ilaahay baa mahad iska leh ciidamada TFG-da oo geesida iyo AMISOM iyo dawladaha dariska sida Ethiopia Kenya dadaalo badan baa la sameeyay gaar ahaan magaalada Muqdisho wada amnigeeda aad baa loo wanaajiyay ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadda Soomaaliyeed uu u ziyaadiyo gobolada dhexe iyo gobolada koonfureed dadaalo badan baa laga wadaa dawladda Ethiopia iyo ciidankeeda iyo TFG-da iyo Ahlusunna wal Jamaa dadaalo ay ka wadaan iyo gobolada dhexba gobolada Jubbooyinka dadaalo badan baa laga wadaa dawladda Kenya iyo ciidamada TFG-da dadaalo badan ay ka wadaan iyo Ahlusunna wal Jamaa waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay dhibaatadan ka baxdo iyadoo isku aragti ah oo dawladnimadeedii iyo qarannimadeedina ay hanato wixii la soo maray runtii maanta waa maamulka degmada Howlwadaag ayaa isku hawlay inay dib u dhis ku sameeyaan ama sidii bilicda loo soo celin lahaa wadada wadnaha ee iyadu dhacda amaba ku taal bartamaha degmada Howlwadaag wariye Ilhaan Cabdisalaan Barre ayaa umurtan ka faaloonaysa dayactirkani uu ka wada maamulka degmada Howlwadaag wadada wadnaha ayaa soconaysa maalintii afaraad iyadoona maamulku uu hirgelinayo wadada ayaa laga bilaabay baad bixin iyo dayactir lagu sameynayo meelaha burbursan ee wadada dhexdeeda ah iyadoo dhagax dhig lagu sameeyay darjiinooyinkii ku yeelay wadada hareeraheeda si ay u soo laabato bileedii ay lahayd wadadaasi gudoomiyaha degmada Howlwadaag Mudane Maxamed Abuukar Jacfar ayaa faahfaahin ka bixiyay dayactirka iyo howlaha nadaafadeed ee ka socda wadada wadnaha isagoona ugu booriyay bulshada Soomaaliyeed in ay u istaagaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen dayactirkaasi dadka shacabka oo degan dadka ganacsatada ah intaba aan ka wada tirsanay wax badan aan ku taameeyay in maaragtay xaafadaas ku noolnahay oo aan suulidan laga saaran tahay inaan wax ka qabanno waxqabadkii wada hadal badan ka bacdi waxaan isla afkarnay inaan shaqada bilaabno shaqadina waa wadnaa hadda annaga iyo shacabka iyo ganacsatada intaba waa wadnaa hawshii waxaan garabsiinaa waa intaas saraakiisha saldhigga Bakaaraha iyo saldhigga Howlwadaag labadaas saraakiil iyo
guddiga intubana ka qayb qaadanayaan amniga meesha markii amni ka jiro ayaa laga qaban karaa meel amni ka jiro waxba lagama qaban karo aad ugu mahadsan ayaguna shaqada ay nagala qabteen xagga amniga qaybahayna kalena ugu wadnaa nadaafadda waxaana jeclaa insha allah bishan gudaheeda ay wax badan iska bedelaan dayactirkani maalintii afraad uu ka wada maamulka degmada Howlwadaag ayaa qayb ka ah dayactirro iyo dhismooyin ka socda caasimadda Muqdisho oo dib loogu soo celinayay bilicdii ay caasimaddu lahayd Ilhaan Cabdisalaam Barre telefishinka qaranka Soomaaliyeed isgoyska Howlwadaag xubno ka tirsan xafiiska qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya iyo xubno kale oo iyaguna ka tirsan dawladda ku meel gaarka ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee caasimadda gobolka Bay wariyaheena gobolkaas Liibaan Cali ayaa umurtan eegaya socdaalkan oo hal maalin qaatay ayaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ee qaramada midoobay waxa ay maanta ku tageen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyagoo halkaasi kulamo kula soo qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool gobolka Bay iyo maamulka dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ee gobolkaasi wafdiga uu hogaaminayay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya ahna agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda arrimaha gudaha mudane Nuur Axmed Diiriye ayaa waxa uu ujeedka socdaalku ahaa ogaanshaha hab maamulka ka jira gobolka Bay iyo sida ay bulshadu isugu xiran tahay iyadoo socdaalkan ahmiyadiisu ay ahayd in la ogaado isku xirnaanshaha dhanka ammaanka iyo wada shaqeynta shacbiga kala dhaxaysa maamulka gobolkaasi kulan muddo qaatay oo ay laamaha kala duwan ee bulshada ay la qaateen mas'uuliyiintii dawladda ee socday iyo mas'uuliyiintii ka socday laamaha kala duwan ee hay'adaha qaramada midoobay ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid tahay ammaanka iyo maamul wanaagga agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda arrimaha gudaha oo ahaa mas'uulkii hogaaminayay wafdiga ayaa sharaxaya socdaalkoodii iyo waxa ka soo baxay bismillaahir rahmaanir rahiim socdaalkan maanta aan ku nimid gobolka Bay qaasatan degmada Baydhabo runtii mas'uuliyiintii gobolka Bay joogtay oo nooga soo horeysay aad bay noogu soo dhaweeyeen ayagoo runtii iska xil saaray dhinac walba dhinaca amniga iyo soo dhaweynta diyaar gareeyay dhammaan bulshada aan la kulanayna waxay ahayd bulsho aad isugu xiran oo runtii ka kooban culumaa diin odayaasha dhaqanka haweenka ururada kale ee bulshada ee kala duwan runtii aad bay inoo soo dhaweeyeen waana isku afgaranay arrintii aan u soconnay waxaan runtii arrintaan u soconnayna ujeedadeedu ay ahayd maamul wanaagga dhinaca amniga isku xirnaanta amniga iyo isku xirnaanta heer federaal heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo arrintaas waa isla qaadanay isku xirnaantii maamulka noocyadiisa kala duwanaa dhinaca amniga dhinaca garsoorka dhinaca maamul wanaagga intaba waanu isu afgaranay gudoomiyaha gobolka Bay ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdifataax Geesay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay socdaalka wafdigan maanta ka socda dawladda iyo qaramada midoobay ee soo gaara Baydhabo ahmiyadda uu leeyahay shacbiga reer Baydhabo iyo maamulka dawladda runtii maanta waxay noo tahay maalin aad farxad u weyn leh socdaalka ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumadda federaalka ku meel gaarka Soomaaliya agaasimihii guud agaasimihii gobolada agaasimihii amniga iyo qaar kale oo xubno wasaaradda arrimaha gudaha amniga qaranka socdaan waxay nooga qayb badan tahay socdaalo kale oo ilaa iyo madax heer wasiir ilaa heer gudoomiye baarlamaan ay noo imaan jireen waayo annagu ismaba lahaynba wasaaradda arrimaha gudaha amniga qaranka ee gobolka Bay gobolada ay tirsanaysa ama ay ka warqabtay ka mid tahay ismaba lahaynbo sababtoo ah waa wasaaraddii annaga sharci ahaan aan hoos tagaynay aan u baahnayn mar walba inaan riboodka siino ayadana riboodkana soo siiso wada shaqayn dhaban aan yeelano waxaan rajaynaynaa annaga oo fariinta u marsiinayno mas'uuliyiinta daaragtarada ama agaasimayaasha heer guud iyo heer waaxeed ee ka socda wasaaradda arrimaha gudaha amniga qaranka in ay fariintaas naga gaarsiiyaan wasiirka sida ugu dhaqsiyaha badan la uu noo soo booqdo mar labaad waxaan u mahadcelinaynaa wafdiga uu hogaaminayo agaasimaha guud wasaaradda master Nuur Diiriye aad iyo aad ay u mahadsantihiin kulankii maanta maxaa ka faa'iideen ka gobol ahaan waxaan ka faa'iidnay pointiga ugu horeeya waad ka warqabtaa midda hadda kuu sheegay iska warqabka isku xirnaanta heerka dawladeed ee heer gobol iyo heer wasaaradeeda waa nuqdada koowaad ama pointiga koowaad aan ka faa'iidnay midda labaad
waxaan ka faa'iidnay inay xogta dhabta ay helaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo shaqada maaragtay ee tusaalaha u noqon karta guud ahaan dalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Bay oo halkaan ka qabtay waxaan kaloo ka faa'iidnay wafdiga AU-da IGAD AMISOM UNBOS kulli ay ka socdaan oo noo yimaadeen wax weyn bay noo ahayd ugu dambeyntiina waxaa dadweynaha la hadashay oo ahmiyadda iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee wasaaradda arrimaha gudaha ee daneynaysa u sharaxday agaasimaha xiriirka gobolada iyo gaarsiinta dowlad wanaaga deegaanada dowladda ay ka xoreyso maleeshiyada kooxda al-shabaab Dahabacuud marka shacabweynaha degan oo ka kooban culmaa u diinka dhalinyarada haweenka wada dhaqameedyada in aan muxuu ahayto aan kala munaaqashoono maadaama dhibaatooyinkii soo gaaray intii burburkii u ahaa waxaan rabaa si furan inaan uga wada hadalno dhibaatada ka jirta magaalada ama dhinaca amniga ama dhinaca muxuu ahayto hay'adaha kale oo macnaha wasaaradaha macnaha isheeg dhismooyinka oo ka jira magaalada dhinaca muxuu ahayto maxkamadaha dhinaca isteeshimada waxaan rabnaa inaan ogaano oo qiimeeyno oo aan macnaha isheeg aan isla ogaano kulamadan mas'uuliyiinta dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya iyo laamaha qaramada midoobay ku gaarayaan goboladii dhawaan laga saaray kooxda al-shabaab ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay sidii maamul wanaag iyo waliba rabitaanka dadweynaha looga hirgelin lahaa goboladaasi Soomaaliya tooso isku tiirsaday adbekeena taagdarnay taageero alan yahow tilmaan wacanba midibkaaga saamku yahow xidigtiina tirinaysa dhahda kaaga sii taadhe Soomaaliya tooso isku tiirsaday adbekeena taagdarane taageero weyne Liban Cali Nuur telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Baydhaba halka warkaasi idinkaga imanaya waa London stuudiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed dhanka kalena ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay wareegida ay la wareegeen degmada Balcad ee ku taal gobolka Shabeellada Dhexe kusimaha wasiirka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga mudane Maxamuud Macalin Nuur iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo maanta si wada jir ah ula hadlay warbaahinta dowladda ayaa u hambaliyay ciidamada dowladda Soomaaliya guulaha ay ka gaareen howlgaladii ay kula wareegeen gacan ku haynta degmada Balcad iyo deegaanada ku xeeran waxayna sidoo kale ummadda Soomaaliyeed ugu hambaliyeen sanad guuradii 12-aad ee ka soo wareegatay markii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed laga taago dhul ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaana ay gobolada waqooyi xornimada ka qaateen gumaystihii Ingiriiska taliyaha ciidamada xoogga dalka sareeyagaas Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa sheegay in muhiimad gaar ay xambaarsan tahay munaasabadan 26 Juun waxaana u hambaliyay ciidamada isagoo ku amaanay dadaalada ay dalkoo dhan kaga xoreynayaan maleeshiyaadka al-qaacidada Soomaaliya ee al-shabaab maanta waxa weeye waa maalin weyn waa maalin farxad leh waa maalintii ugu horeysay calan Soomaaliyeed oo la saaro oo uu ka babado dusha wadanka Soomaaliyeed hambaliyadaas waxaan u dirahayaa waxaan u hambaliyeenayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ama gudaha joogto ama dibadda joogto waxaan kaloo u hambaliyeenayaa dhammaan qof kasta oo ka qayb qaatay xornimadii iyo dadaalkii looga jiray ummadda Soomaalida qarannimadeeda waxaan kaloo halkan hambaliyo uga dirahayaa ciidamada qalabka sida oo ku hawlan nabad ku soo celinta wadanka ama ummadda Soomaaliyeed wadankeeda in ay ku noolaato nabad waxaan kaloo hambaliyad u dirahayaa xoogga dalka Soomaaliyeed oo guulo wax ku oola ka soo hooyay hawlgaladii ay kula jireen ama dagaaladii ay kula jireen dadka nabadiidka oo ugu dambayso maanta halkan in kala hadlayo xoreynta ama gacanka muxuu ahaato gacanka bixinta dadkii al-qaacida iyo al-shabaab magaalada Balcad iyo agagaarkeeda waxa kaleeto ay ciidamadaas ku sii hawleeyeen gobolada meelo kale oo kamida inay sidoo kale ay gacanta dawladda dib ugu soo celiyaan sidoo kale kusimaha wasiirka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda difaaca Soomaaliya mudane Maxamuud Macalin Nuur ayaa isna soo dhaweeyay guulaha ay ciidamada soo hayeen waxaana ummadda Soomaaliyeed ugu hambaliyay munaasabada maalinta 26 Juun aqoon-yahano Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay doorashada madaxweynaha cusub ee wadanka Masar wariyaha iyaga magaalada Nairobi Maxamed Axmed Ilka Case ayaa umurtan eegaya
iyadoo dhowaan doctor maxamed mursi oo ah murashaxii kooxda ikhwaanul muslimiinka uu ku guuleystay doorashooyinkii dalka masaarida ayaa aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo Soomaalida ku xeeldheer arrimaha carabtuba waxa ay rajo wanaagsan ka muujinayaan in doorkii masaaridu ay ku lahayd siyaasadda Afrika iyo siiba Soomaalida uu soo noqon doono. Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ah khabiir arrimaha carabta iyo waliba dunida islaamka ku xeeldheer oo telefishinka qaranka uga warramay saameynta ay yeelan karto doorashada Dr. Maxamed Mursi ayaa ku tilmaamay inay tahay guul u soo hoyatay dhaqdhaqaaqyada islaamiga ee caalamka ka jira waxaana uu sheegay in doorashada doctorkan kooxda ikhwaanul muslimiinka u sharaxna ay keeni karto in ay masaaridu si gaar ah ay u danayaan siyaasadda Soomaaliyeed oo xilligii Jamaal Cabdinaasir oo kale uu soo noqonayo. Soomaalida iyo masaarida runtii xiriir aad u qoto dheer baa dhex yaalay oo aad iyo aad u qoto dheer waqtiyadii haddaan dib u eegno ay dagaalami jireen mataqaana muslimiinta iyo kiristaanku ay dagaalami jireen waxaa jaanibka muslimiinta u taagnayd xuquuqda ilaalinta iyo difaaca dadka muslimiinta ah oo ay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed dad masaarida ayay ahaayeen oo mar walba ahaa xoogga laga haybaysto marjica oo dadka muslimiinta marka taariikho badan baa jira dhacdooyin badan oo waqti noo saamixi karin oo si gaar ah ummadda Soomaaliyeed saameyn ugu leh waxaynu ognahay dad badan oo Soomaaliyeed inay ku nool yihiin waxaynu ognahay arday badan oo Soomaaliyeed inay hore wax uga soo barteen jaamacatul Azhar kuwa kalena hadda ay wax ka bartaan oo ku nool yihiin waxaan ognahay inay intii hadda burburka Soomaaliya ka jira inay in badan siyaasadda marra ay soo galayeen marra ay ka baxayeen laakiin doorkii la rabay maysan qaadan barihii ugu dambeeyay marka hadda waxaan filaynaa inay door weyn ka qaataan Soomaaliya iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa iyo maxaan ku yiraahdaa in danayn baana ka muuqata ragga hadda xukunka qabsaday inay Soomaaliya iyo arrimaheeda danaynayaan. Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul waxa kale oo ka warbixinaya caqabadaha hor yaala Dr. Maxamed Mursi oo ah madaxweynaha cusub ee dalka masaarida ee dhawaan la doortay. Dhibaatooyin badan baa hor yaala arrimo duruufo yani taxadiyaad aan la soo koobi karin ayaa hor yaala waxaa ka mid ah dhaqaalaha waxaa la sheegay waddanka Masar dadka in ka badan 50% inay ka hooseeyaan mataqaana poverty line-ka ama line-ka mataqaana dadka faqriga inay ka hooseeyaan waxaa la sheegaa income-ka ama capital-ga soo gala qofka $2 inuu ka yar yahay maalinkii qofka waxa soo gala $2 in ka yar waxaa la sheegaa dadka shaqo la'aanta ama unemployment rate inuu aad u sareeyo meelaha adduunka ugu sareeyo ka mid yahay oo dadka xoogga leh ee shaqayn kara ee shaqada u diyaarsan inay ka badan aan shaqada helin inay ka badan yihiin 12%. Waddanku hadda si uu u socdo wuxuu u baahan yahay ugu yaraan $3 bilyan si ayuu u baahan yahay haddada si uu waddanku u shaqeeyo functional uu u noqdo. Dhalinyarada shaqayn karta in ka badan 25% waa shaqo la'aan. Maciishadu cirka isku sharartay marka duruufo dhaqaale oo aad u waaweyn oo u baahan wax laga qabtaa hor yaala waxa hor yaala la macaamilka tayaaraad kala duwan waddanku waa waddan multicultural oo isku jira tayaaraadkii islaamiga ah ee kala duwan sidoo ula macaamili lahaa maxaan ku yiraahdaa haday islaamiyiin yihiin maaragtay tayaaraad kala duwan haday masiixiyiinta yihiin haday nusayriyiinta yihiin haday maaragtay masiixiyiinta aqtaabta haday marka la macaamilkooda taxaddi aad u weyn ah حتى ملتري waxaa kaloo kamid ah soo socdo waxaa kamid ah military waa awoodda ugu sareysa ee waddanka hadda haysta oo ogtiin waxyaabaha ay sameeyeen inay baarlamaankii kala cayriyeen inay leeyihiin dastuurkii annaga soo dhisayna awood isa siiyaan inay leeyihiin madaxweynuhu keligii ma iclaamin karo dagaal mana joojin karo mana iclaamin karo keligii dagaal oo baalihii baa laga rifay sidoo arinta u soo ceshan lahaa awooddaas ayaa kamid ah military sidoo ula macaamili lahaa ayaa horyaala waxaa kamid ah qadiyadda weyn ee Filistiin oo iyaduna iyo Israa'iil iyo xiriirka Israa'iiliya ka dhaxeeya iyo qadiyadda Gaza oo garabka ku haysta Masar sidee ula macaamili doonaa heshiisyadii ay horey u galeen Israa'iil iyo Masar ee Camp David muxuu ka bedeli doonaa ma sidii bay u sii jiri doonaa qadiyadda Gaza ama muxuu ka bedeli doonaa ma garanaysa safaaradii waa taxadiyaad aad u waaweyn waxaa kamid ah caalamka reer galbeedka isagoo tayaar islaami ah sidoo ula macaamili lahaa oo ula shaqayn lahaa hawl weyn ayaa ninka runtii hortaala shacabka dalka masaarida ayaa in ka badan 30 sano markii ugu horeysay waxa ay doorasho xor iyo xalaal ah ay ugu doorteen murashaxii kooxda ikhwaanul muslimiinka oo in muddo ku jiray xabsi uu ku riday madaxweynihii hore dalka masaarida Maxamed Xusni Mubaarak ee xukunka laga riday oo hadda isagu booskiisii bedelay oo xabsiga ku jira Maxamed Axmed Ilkaase telefishinka qaranka Nairobi.
intaasi waa warkii dalka. iminkana wararkii caalamka. madaxweynaha cusub ee wadanka Masar Maxamed Musri ayaa kulan la qaatay amaba booqday maanta Field Marshal Tantawi oo isagu ahaa ninka ugu sareeyay golihii military ee hayay majaraha talada wadanka Masar. madaxweynaha cusub ee Masar Maxamed Musri ayaa maanta booqday Field Marshal Tantawi oo ah hogaamiyaha amaba ninka ugu sareeya ciidamada taliska militariga ee iyagu haya majaraha talada wadankaas. madaxweynaha cusub iyo hogaamiyaha ciidamada ayaa ka wada hadlay sidii 30 bishan dawlad shicib ah oo dimuqraadiyad ah oo madaxweyne ka yahay Mursi loogu dhaarin lahaa iyadoo ay dhawaan kala direen baarlamankii u badnaa islaamiyiinta ee iyagu markaa wadanka Masar ururka loo yaqaan Akhwaan al-Muslimiin ama Muslim Brotherhood ay u badnaayeen dadka kaga jiray. waxaan u malaynayaa dadka caawa meeshan iskugu yimid sharafta leh taariikhda waa lama iloobaan waxaan dhahay yaa xasuusan karo taariikhda xalane halyeyga uu leeyahay xeradii markii iskuulka dugsiga sare la dhameeyo ayaa la geli jiray tababar baa lagu qaadan jiray hay-ad oo aad u weyn ah caalami ah oo alxamdulilah intaasoo ummad ay wax u qabatay hay-adan caalami oo xalane aniga meeshaas waa soo maray waxaan ballan qaadnay insha allah liwajhi illaahi alkariim inaan caawino aan garab aan siino ceelal badan ceelal ma xataa iskuulaad in ummadda in loo dhiso ujeedada waxaa ka turjumayo presentationka aragteen boorka ka turjumayo dadka badideeda way la socdaan qofka laga sheekeynayo oo ah maxamed cabdulle xalane waa qof maaragtaa soomaalida oo dhan ku weyn anagoo dhan aan naqaano taariikhda maxamed cabdulle xalan dee odayaasha joogo hayaan oo yaqaaniin sababta magaca aan u dooranay wax kale ma aha waxaan u dooranay inaan u isticmaalno sifo waxaan ka wadaa waa attribute waaye maadaama uu ahaa nin geesi ah nin ma aragtaa wadankii u dhintay nin diinta u dhintay waxaan ka mithaalna markaa aan kala mid nahay annagana inaan diinteena wax gashanaa dalkeen halka warkaas idinkaga imanaya waa stuudiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee magaalada London. hadduu aaba idmana tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono warkan iyo mid lamid ah oo aan idin soo jeedinaya anigoo Cabdilaahi Xuseen Maariya waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.